bartayna deeqsi hub waxaan dhawaan ku shaaciyo aan idinku soo bandhigay oo idinku soo gudbiyey DV lottery-ga iyo waxa loo baahan yahay markaad xareysanayso qaabkaad u xareysanayso iyo nidaamkaad u raacayso. halkan waxaan maanta aan u taaganahay oo idinku soo gudbin doonaa jawaabihii su'aalihii aad iga soo weydiiseen ee ku saabsanaa DV lottery-ga. su'aalaha la soo weydiiyay waxa ugu badnaa arrinta baasaboorka. baasaboor Soomaali ma lagu apply gareyn karaa? baasaboor Soomaali waxa saaran xanibaad baa saaran, sideed iga caawin kartaa? lacagta halka dollar ee la soo kordhiyay ma khasab baa in la bixiyaa mise su'aalo badan oo caynkaas ah. halkan marka maanta waxaan idinku soo gudbinayaa oo idin sheegi doonaa kow baasaboor Soomaaliga waa lagu apply gareyn karaa. sababtoo ah xanibaadda saaran baasaboor Soomaaliga iyo DV lottery-gu waa laba shay oo kala duwan oo kala madax bannaan. that means baasaboorkaaga waxa lagaaga baahan yahay oo qura in lagu garto in aad adigu tahay ciddii saxda ahayd ee soo apply gareysay bakhtiyaanasiibkan isla markaana ku guulaysatay bakhtiyaanasiibkan. laakiin macnaha DV lottery-ga marka laga hadlayo waa ka macno duwan yahay. sababtoo ah DV lottery marka lagu leeyahay waa bakhtiyaanasiib aad ku guulaysanayso inaad ku hesho permanent residence. that means degnaansho joogta ah oo aad u guurayso degayso Mareykanka aad degayso. sidaa daraaddeed guulaysato ee aad safaaradda aad tagto interviewga lagula yeelanayo waa in lagu qiimeeyo ma u qalantaa inaad Mareykan tagto oo aad degto, ma la qabsan kartaa nidaamka iyo siday dadku u nool yihiin iyo qaab nololeedkooda iyo noloshooda ma la qabsan kartaa. intaasaa lagu qiimeynayaa. therefore baasaboor Soomaaliga safaaradda Mareykanka marka horeba fiisa may saari jirin, laakiin waxay raacin jirtay attachment ama waraaq lifaaq bay raacin jirtay. lifaaqaas ayaa markaa magacaaga, sawirkaaga iyo informationkaaga oo dhan uu ku qoran yahay. taas baad ku duulaysaa, taas baad Mareykanka ka degaysaa, kaas baadna dalka aad ku galaysaa. waana kuu sheegay oo DV lottery-ga markaad ku guulaysato green card-kaaga horaad ka helaysaa oo horaa lagaa siinayaa. that means waxaad nasiib aad ugu heshay in aad hesho deganaanshiyo joogto ah oo aad Mareykan ku noolaanayso. halkaa aan caddeeyo waxaa jira dad fara badan oo qaab qaxoontinimo ah ama mangageliyo doona ama intay fiisa qaateen baasaboorro kale iyagoo wata Mareykanka degay. therefore dadkaasoo kale process bay maraan ilaa 2 sano ah oo la qiimeynayo qofkan ma u qalmaa in uu Mareykanka dego deganaanshiyo la siiyo. that means markaad adigu iminka lottery-ga ku guulaysato waxa aad ka gudubtay tallaabooyinkii kale oo dhan ee aad mataqaanaa mari lahayd. sababtoo ah waxa aad nasiib aad u heshay inaad si dhaba aad u hesho permanent residence ama deganaanshiyo dhaba. dan Mareykan saasaad ugu guuri, halkaasaad degi. markaa baasaboor Soomaaliga xanibaadda saaran iyo lottery-gu isma saameynayaan. keliya waxa baasaboorka lagaga baahan yahay in lagu garto adigu inaad adigu tahay qofkii soo apply gareeyey, qofkii fiisaha xareystay, lottery-ga xareystay, qofkii mataqaanaa barnaamijka ka qayb qaatay inaad adigu tahay ayuu cadaynayaa baasaboorku, wax kale ma cadaynayo. su-aasha labaad ee baasaboorka la xidhiidha iyadna waxa ay ahayd ma ku apply gareyn karaa baasaboor kaloo ajaanib anigoo haysta. tusaale ahaan anigoo Soomaaliya ama baasaboor Ethiopian ama Djibouti ama Kenyaati ma ku apply gareyn karaa? why not? waad ku apply gareyn kartaa, waadna ku tegi kartaa, fiisahan waad ku qaadan kartaa baasaboorka. laakiin halkaa 2 shardi baa yaala. ma waxaad ku apply gareynaysaa adigoo Soomaaliya oo baasaboor Kenyaati wata ama Ethiopian wata ama Djibouti wata, mise adigoo sheeganaya inaad tahay Kenyaati ama Djibouti ama Ethiopiawi deeta laakiin ku nool Soomaaliya gudaheeda meel ka mid ah Soomaaliya. haddii ay tahay arrinta talabaad inaad ku nooshahay Soomaaliya gudaheeda oo Soomaaliya gudaheeda ka shaqaysato laakiin aad haysato nationality-ga ama baasaboorka Kenya ama Ethiopia ama Djibouti aad haysato, hadhow markaad xareysanayso waxaad ku xareysanaysaa inaad tahay ama Djibouti ama Kenyan ama Ethiopian. baasaboorka haysta dalkiisa nationality-gaaga inaad tahay. haddii laakiin ay kala duwanaato oo tiraado Soomaali baan ahay, nationality waxaan haystaa dowlad shisheeye haystaa, kaa socon mayso waxaas. waayo dual nationality-ga lama ogola. sababtoo permanent residence-ka qaadanaysa ee Mareykan viisaha ayaa second nationality ku ah, kaasaa nationality ku ah. therefore triple nationality ama 3 jinsiyood leh adduunyada lama qaato. only 2 nationalities baa la ogol yahay ama dual nationality wax loo yaqaano. sidaa daraaddeed markaad ku apply gareynayso ku apply garee baasaboorka aad wadato jinsiyadiisa ku apply garee.
su-aasha saddexaad ee baasaboorka la xidhiidha inaan ka jawaabaya waxa weeyaan su-aasha dadka odhanaya baasaboor la'aan marka hore ablaay garee deeta markaad ablaay gareysuu kuu soo baxo dib ka raadso baasaboor ethoobiyaana ama mataqaanaa jibuutaawiya ama kenyaatiya na waxaa laga rabaa informationka saxdeed ku xaraysay dv lotteriga markaad ablaay gareynaysay in uu ku qornaado baasaboorkaaga saxda ah yaa ku garanti garanaya yaa ku damaanad qaadaya waqtiga markaad guulaysato time frameka yar ama waqtiga yar kooban aad haysataa in baasaboor dal kale aad ku heli karto oo aad barnaamijka ka qayb qaadan karto yaa ku damaanad qaadaya waa laba waxaan hore u sheegay baasaboorku waqti xaadirkan inaanay dowladda maraykanka weli aanay caddaynin inuu khasab yahay iyo inaanu khasab ahayn weli waan ka jawaab sugaynaa oo 16 bisha ayay jawaabta saxda ay soo bixi doontaa maraykan ku dhawaaqi doonaa dhammaan requirement-ka loo baahan yahay ee lagu apply garaynayo dv lotteriga sidaa daraaddeed waxaan kugula talinayaa haddaad soomaaliya gudaheeda joogto in aad baasboor soomaaligaaga diyaarsato deetana aad marka barnaamijku uu furmo aad ku xariso baasboorkaaga waa haddii uu noqdo mid baasboorka loo baahan yahay khasab haddii uu noqon waayo waxaad ku xarayn kartaa baasboor la'aan deetana saasaad ku hirgeli kartaa su-aasha kale aan ka jawaabayna waxa weeyaan national id ma la ogolyahay ama national id soomaaliya ha ahaado ama national id somaliland ha ahaado ama national kan dambe imika soo baxay soomaaliya nira la yidhaahdo nira idgeeda ha ahaado wax id oo la ogolyahay habeeraatee iyadana ma jirto waa haddii baasboorku noqdo khasab therefore id looma baahnaanayo halkaa markaad u fiirso waxaan u baahannahay in jawaabta saxdaan ka sugno dowladda maraykanka qaabka loo apply garanayo shuruudaha cusub ee ay soo kordhinayso shuruudahaasaa markaa jaangoyn doona qaabka aynu wax u marayno iyo qaabkaan wax u apply garaynayno intaba hadduu alla yidhaahdo marka jawaabtu maantaan ka sugi doonaa maantaanu eegi doonaa wabilaahi towfiiq